madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo waxa uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay madaxa ugu sareeya hay'adda IOM Bariga Afrika. Soo dhaweyn kadib madaxdu waxay wada qaateen kulan saacado socday oo goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Axmed Madoobe Nuno Maxamed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Ibrahim Abduqaadir Baafo. kulanka intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii IOM ay u kordhin lahayd shaqada ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana si aad looga falanqeeyay sida uga habboon ee wax loo qaban karo arrimaha barakacyaasha caafimaadka iyo dardargelinta mashaariicda dib u dhiska magaalooyinka hay'adda IOM ay ka shaqeyso. madaxda ka socotay hay'adda IOM ayaa ballan qaaday inay sii kordhin doonaan adeegyada shaqo ay ka wadaan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay sheegeen in dadka barakacyaasha ee xilligan soo wajahday dhaxanta deerta roobka ee ka xurtay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gurmad degdeg ay la soo gaari doonaan dhawaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u mahadceliyay madaxdii ka socotay hay'adda IOM waxaana ugu baaqay in shaqada baaxadda leh ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si laba jibaaraan waxaan ugu baaqay inay sii kordhiyaan sidii wax loo qaban lahaa arrimaha bani'aadanimada barakacyaasha tayeenta xarumaha caafimaadka iyo kordhinta mashaariicda dib looga dhisayo dalka. shirka markii uu soo cilaaday waxa warfideenka la hadlay oo u faahfaahiyay waxyaabihii laga hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta ka soo qayb galay madaxweynaha waxaa noo yimid wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxa bariga iyo geeska Afrika ee IOM hay'adda IOM iyo madaxa UN-ta ee xafiiska Baydhabo iyo madax kale oo ka socotay hay'adda IOM iyo UN-ka. shirkaas waxaa shirgareynayay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana loogu wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan mashaariicda IOM ee ka wado iyo UN-ta arrimaha stabilization programka oo ka socdo shabeellada hoose iyo barnaamijyo badan oo ka socda Baydhabo. madaxa IOM ee bariga iyo geeska Afrika wuxuu ballan qaaday in IOM taageerada ay siiso dawladda ay sii wadi doonto khaasatan mashaariicda ka socoto shabeellada hoose iyo mashaariicda oo loo yaqaan xalka waara oo lagu la tacaalayo arrimaha barakacyaasha Baydhabo iyo sidii wax loogu qaban lahaa khaasatan sidii loogu heli lahaa xal waaro markii haddii ahaan lahayd guryo oo lagu noolaan karo in loo dhiso dib u dejin in loo sameeyo iyo mashaariicda kale ee wadaan sidii u xoojin lahaan u dardargelin lahaan waxay aad u amaaneen UN-ka iyo IOM wada shaqaynta wanaagsan oo kala dhaxayso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uuna hogaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed aad ayay u bogaadeen howlaha wanaagsan oo madaxweynaha wado khaasatan dib u heshiisinta iyo howlgallada ka socda ee shabeellada hoose iyo arrimaha oo dowlad wanaag oo madaxweynaha aad u wado aad ay u bogaadeen. shirkan guul ay ku soo dhamaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.